madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka Turkiga kadib markii casuumad rasmi ah ka heleen dhigiisa dalka Turkiga. Recep Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa si gaar ah uga wada hadli doona xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya labada dal iyo in la adkeeyo iskaashiga dhaqaale iyo amniga ee ka dhexeeya labada dowladood iyo waxyaalo kale. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa BBC u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Turkiga ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin xoojinta labada dal, xiriirka amniga diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. Madaxweyne Xasan ayaa intuu ku sugan yahay dalka Turkiga la filayaa inuu booqdo xerada lagu tababaro ciidamada Soomaaliya ee halka tababarka u jooga Yaxye Muuse Ibrahim Yaxye Nairobi Hargeysa.